tobanka ciidan ee ugu liita adduunka 2023 lambarka tobnaad Montenegro waa wadan Balkaan ah oo leh buuro raf ah iyo xeebo ciriiri ah waxaa la aasaasay 1879 waxaana ay ku biirtay NATO xubinta 29aad ee 2017 ciidamadeeda militariga ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa saddexaad ee ugu awoodda liita ciidamada NATO tirada guud ee ciidamada militariga waa 12000 waxa active ah 2000 oo kaliya awoodeeda hawadu waxa ay ku tiirsan tahay 11 helicopter oo kaliya si kastaba ha ahaatee deynteeda dibadda waxa ay gaartay 2.5 bilyan oo dollar sanadka 2023 lambarka 9aad Panama ciidanka Panama waxa uu ka kooban yahay 27000 oo askari inkastoo ay tani tahay tiro aad u wanaagsan haddana xaqiiqada ayaa ah in aysan jirin shaqaale firfircoon taas ayaa ka dhigaysa ciidamada dadweynaha reer Panama mid ka mid ah militariga ugu awoodda yar adduunka awoodeeda hawadu waxa ay ka kooban tahay 12 diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada ah iyo 22 helicopter ah halka ciidamadeedu ay wataan 50 baabuur oo kuwa gaashaaman ah Panama waxa kale oo ay ku hubeysan tahay sahay badan oo ay ku jiraan 117 garoon diyaaradeed laakiin deynta dibadda ayaa aad u sareysa waxayna gaaraysaa 101 bilyan oo dollar lambarka 8aad Central African Republic ciidamada qalabka sida ee Afrikada dhexe waxa ay leeyihiin 10000 oo askari oo shaqeysa iyo 1000 xubnood oo ka tirsan militariga mana laha wax shaqaale ah oo kayd ah waxa la aasaasay 1960 laakiin si dirqi ah ay u shaqeynaysay ilaa 2012 sababtoo ah waxa ka dilaacay dagaal sokeeye hadda waxa ay leedahay 2 diyaaradood oo kuwa xamuulka ah iyo 1 helicopter ciidamada dhulka waxa ay wataan 3 taangi iyo 82 baabuur oo kuwa gaashaaman ah waxa ka maqan maraakiib ganacsi balse waxa ay haystaan 2 dekedood iyo 39 garoon diyaaradeed deynta lagu leeyahay ayaa ku dhow 708 milyan lambarka 7aad North Macedonia marka la barbardhigo dalalka kale ee ku qoran liiskan ciidanka jamhuuriyadda waqooyiga Macedonia ayaa ka kooban kuwa shaqeeya iyo kuwa kayd ah tirada guud ee ciidamada waa 14500 kuwaas oo 7500 ka mid ah ay ku jiraan howlahooda shaqo awoodeeda diyaaradeed ayaa isugu jira 10 tababare iyo 10 helicopter halka ciidamadeeda dhulka ay ku xoojiyaan 10 taangi iyo 228 baabuurta gaashaaman nasiib darro ma laha ciidan badeed sidoo kale ma laha dekedo iyo maraakiib ganacsi waxa ay leedahay deyn dibadeed oo ka kooban 9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lambarka 6aad Suriname tirada guud ee dadweynaha waa 614000 awoodda la heli karo waa 135000 gudaha Suriname halka 79000 ay haystaan shaqadooda qiyaastii 3000 ayaa gaaraya da'da militariga sanadkiiba hadda ciidanku waxa uu leeyahay 18000 oo shaqaale toos ah mana jiraan ciidan kayd ah waxay leedahay 3 helicopter 100 baabuurta dagaalka ah iyo 18 hanti bad ah haddaba Suriname waxa lagu magacaabi karaa mid ka mid ah ciidamada ugu liita adduunka lambarka 5aad Sierra Leone waa wadan ku yaala galbeedka Afrika oo dhaca badweynta Atlantika waxa loo arkaa mid ka mid ah ciidamada ugu yar adduunka waxa si toos ah u shaqeeya 9000 oo askari mana laha wax kayd ah waxa ay leedahay dhanka hawada 4 helicopter ciidankeeda dhulkana waxa ay wataan 20 baabuur oo gaashaaman ciidankeeda baddana waxa ay haystaan 10 hanti guud ah si kastaba ha ahaatee deynta sare ee dibadda ayaa ah in ka badan 1.6 bilyan oo dollar lambarka 4aad Liberia waa wadan ku yaala galbeedka Afrika oo xuduud la leh Sierra Leone iyo Guinea waxa ay leedahay 2000 oo askar firfircoon ah oo ka kooban tirada ciidamada militariga mana laha awood hawo sidoo kale ma haystaan kayd ciidan lambarka 3aad Soomaaliya waa wadan ku yaala geeska Afrika ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la aasaasay 1960 waxaana ay soo mareen dib u dhis 2000 ciidanka ayaa ka kooban in ka badan 17500 oo askari Soomaaliya waxa ay haysataa 65 baabuur oo kuwa gaashaaman ah iyo 11 markab oo kuwa ilaalada ah inkastoo ay haysato saad iyada ka badan haddana waxa lagu leeyahay deyn dibadeed oo ka kooban 5 bilyan oo dollar lambarka 2aad Kosovo ciidanka amniga Kosovo ayaa la aasaasay sanadii 2008 kadib markii lagu dhawaaqay madax banaanida dalkaasi 2018 waxay gashay hanaan isbedel si ay u noqdaan ciidamada qalabka sida ee Kosovo shaqaaleeda la heli karo waa 46.4% wadarta guud ee dalkan laakiin kaliya 37.6% ayaa si rasmi ah u shaqeeya halka 9 sanadkiiba ay gaaraan
da'da militariga iminka dadkeeda ciidanka ah waa 6500 mana laha awood cirka ah iyo mid badda ah iyadoo ay saaran tahay deyn dibadeed ka badan 2 bilyan lambarka koowaad Bhutan tirada guud ee dadka dalkan oo dhan waa 857 kaliya 8000 ayaa ka mid ah ciidamada laakiin dhammaan ciidamadaas oo dhan waa kuwa si toos ah u shaqeeya mana laha wax kayd ah agabka militarigu waxa uu ka kooban yahay 2 helikobtar iyo 27 baabuurta gaashaaman ah Bhutan ma laha ciidan badeed maadaama uusan lahayn wax bad ah sidoo kale dalkan ayaa leh 2 garoon diyaaradeed haddana dalkan waxa lagu leeyahay deyn dibadda ah oo ka kooban 2.6 bilyan waad ku mahadsantahay daawashadaada fadlan muuqaalka suulka inoo saar si uu dad badan u gaaro mahadsanid